بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بان ويديساننا تبارك وتعالى في مستهل هذه الكلمة إنه نوافجيه وحي خيره وحي الزلل يسم بالرحان إنه نقى إلاليه عمل كان إنه إلهي كردي وميد سايدرتي لولا تشيده كلمة سيدي غريب الله إعلاميي عنوان كيد وحوي الاختطافات أسبابها وسبل الوقاية منها أفضو بيده صوابها كان إيو سيابها ليساق إلالين كرامة جددك ليساق إلالين كريه وحي على أقل لهذا كلمة أو محاضرة أرمها وياهن دنباء هذا الحين تودو آدكو بضانتهي أفضوبك ضدك لوج جيستو كارهان دلكن عن شوقنو كارهان مقالة نيروبي هي مقالة يكلمتك ووياهن آد الله هذا الحي ورباهنتا هي الشارع اجتمع جودهان تاسو أبورتي أجاح بدن هي حالة عبسلة ضد بدن كو أبورت إلى هير عروره بسكول هذا إني تجان وحقوبي وحبرشة آذان والدين بدن أي كرّبين عبسي بدن بأبورت مر وحن شاء الله أمريكان كلمة ظاهرة بالأسباب كانت جودهان وحكت سابنه سيدا ليس إلى لنكريه waxaan ka hormaraynaa horta inaan muujino ahmiyadda ay leedahay iyo mudnaanta nabadgelyadu ay u leedahay bulshooyinka iyo mujtamacaadkaasi ama muslim ha ahaadeen ama muslim yaysan ahaan nolosha bini aadamka lafdhabar waxaa u ah asaasna u ah amniga iyo nabadgelyada إلهي النعم كبني آدم كأوسيه هو أقوى لسان بين كميت أمانك استقرارك يحسلوني ذا طمأنينة ذا إن يدتكو ونبض قلان نفط هذا حوله هذا أرض هذا دين هذا ديجان هذا منشأ أساسيات كذا كميت قرآن الكريم كملك كمد إلهي وكتل مامي تبارك وتعالى ويكمد هاي إن الله تبارك وتعالى كبهر مريبا أرزاق ده بمعنى بني آدم كم متشري كرو هدو عنطي عبيتان وايو رزق هدو وايو متشري كرو ساعتي هذانا أرزاق ده وحلقه هرمريي يحنتانك يعبيتانك أمني قال لقه هرمري قرآن كم يلا كم ذا وحكم ذا ميلها رنتاس الله كتل مامي مركو إلهي كور رمي في سورة البقرة قصة النبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعى ذي سيء دعيني مقالة مكة يدتك هذا الله وحده تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إبراهيم وحي الرب يوم بلد كان واحد كرك تامد آمنة مدت كيسو أمان كهلا وبلد الحرام ومكة وحكدم بيسيي ehelkiisana waxaad ku irsaaqdaa midhaha xaggooda yalaa dalaga soo baxa ilaahu dadka meeshan degan ka irsaaq gaar ahaan dadka allah iyo maalinta aakhiro rumaysan
marka u fiirsan nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ammaanka ayuu ka hormariyey arsaaqda isla aayad kaloo fii suurati alqasas ku jirta alle waa ku tilmaamay macnaha isaga oo wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waqaaluu in nattabici alhudaa macaka nutakhaطaf min ardina awalam numakin lahum xaraman aamina yujbى ilayhi hamaraatu kuli shayin risqa min laduna walaakina akarahum laa yaclamuun waxay yidhaahdeen maxamedow haddaad hanuunka aada la timid ku raacno reemaka waay nutakhaطaf min ardina dhulkanagaa nalala kala dafi waa nala kala dafi markaasaa ilaahay u jawaabo wuxuu yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan soomaanaan makaninin gacan gelinin maanaan dejinin xaram aamin ah way ammaan ku haystaan oo isaga sababtiisa ay naftoodii xoolahoodii ku nabadgelayaan markaasaa alla wuxuu uhi yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shayin waa arsaaqdii waay adduunka wixii dalag iyo midho ka baxoo dhanna la keeno oo loo soo qaado marka ammaankaa la hormariyey arsaaqdaa laga dambeysay alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah markuu masaladan ka hadlahayay aayadahaas uu fasirayay wuxuu sheegay sababta keentay in qur-aanku uu hormariyo ammaanka uu ka hormariyo amniga uu ka hormariyo arsaaqda wuxuu leeyahay fabada'a biاlamni qabla اrisqi lisababeyn wuxuu ammaanka ugu bilaabay oo risiqa uga hormariyey laba sababood sababta koobaadi waxa weeye lianna istitbaaba alamni sababun lirisqi lianna ammaanku inuu sugnaado xasilo sabab waxay u tahay in risiqa la helo oo markii ammaan la helo maxaa dhacaya faidaa shaaca alamnu wastataba daraba annaasu fi اlardi markii ammaan la helo oo arrintu xasisho oo cabsidu baxdo dadku marka way safrayaan waa la tijaaraysanayaa arsaaqdii baa la keenayaa marka waxa weeye in la safro oo ganacsi la keeno oo beerihii baxaan oo arsaaqda la keeno oo kasabkaasi yimaado waxaa sabab u ah ammaankaa sabab u ah saas daraaddeed ammaanku isagiiyaa sababu arsaaqdii sabab u ah saas waa loo hormariyey waa midda koobaad midda labaad wuxuu yidhi waliannahu laa yatiibu طacaamu walaa yuntafacu binicmati risqin idaa fuqida alamnu sababta labaad ee loo hormariyey ammaanka loo hormariyey waxa weeye lianna cunta macaanaan mayso risqna lagu intifaaci maayo markii amniga la waayo ammaanka haddii la waayo cunta ku dhadhami mayso cabitaanna macaansan mayse risq nicmadiisuna intifaacsan mayse faman min annaasi axaata bihi alkhawfu min kuli makaani watabadada alamnu min xayaatihi uma wajada ladata bimashruubin aw matcuum buu yihi yaa waaye ruuxa dadka ka mid ah oo intay cabsi gashay oo nabadgelyadii meesha ka baxday noloshiisa ka baxday oo cabsidu hareeraysay asagoo xaaladdaa ku sugan haddana cabitaan iyo cunto macaansaday yaa waaye ma kuu dhadhamayso haddaad baqayso cuntona kuu dhami cabitaanna kuu dhadhami maayo markaasaa wuxuu bixiyey ishkaal aayad qur-aanka ka mid ah oo aayadahan hadda amniga hormarisay iyadu ka duwanoo iyadu hormarisay risqiga hormarisay waa aayadee suuratu ilaaf aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf iyadu waxay hormarisay allihii ka ammaan yeelay gaajada cabsidana ka aamin yeelay aladii acamahum quudiyey min juucin gaajo xaggeed wa aamanahum min khawf marka ammaankiibay dib ka dhigtay risqii bay hormarisay taasuu ka jawaabay marka waxuu leeyahay jawaabtu waxa weeye suuraddaasi waxaa lagula hadlayay gaalada wuxuu yihi wacinda mukhaaطabati haؤulaaءi yaxsunu اlbadءu biاlqaliili qabla اlkaiiri wabiاlyasiiri qabla اlcadiim marka gaalada lala hadlayana waxaa fiican buu yihi hadalkooda in inta yar looga bilaabo in weyn intaan la gaadhin
shayga fudud in looga bilaabo ka weyn intaan la gaadhin sidaas daraadeed maadaama gaalo la hadlay usluubka gaalada loola hadlaa saas buu leeyahay almuhim ayadahaasi waxay tilmaamayaan ahamiyadda ay leedahay ammaanka iyo nabadgelyadu ay u leedahay mujtamacaadka waxaa isaguna tilmaamaya xadiidka nebiga sal alla alay wasalam bukhaari fi ladab almufrad iyo tirmidi ibn maajah soo saareen culimada qaarkood taxsiininayaan nebigu leh sal alla alay wasalam man asbaxa minkum mucaafa fi jasadihi aaminan fi sirbihi cinda quutu yowmihi fakaannama xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ruuxii waa bariista asagoo oo jidhkiisu u fayow yaho caafimaad qaba jamaacada iyo mujtamacu ku dhex nool yahayna ammaan ku haysta maalinkaa wuxuu quudan lahaa iyo cuntadiisana haystaa adduunkii oo dhan meeluu jirayba dhammaantii in loo ururiyey baad moodaa yacni wax ka maqani ma jiro dad caafimaadna haysato quudkaagana haysato ammaanna haysato nolosha daruuriyaadkeedu waa intaa marka diinta laga tago adduunyada waa intaa waay marka ammaanku wuxuu ka mid yahay asaasiyaadka nolosha la isku waafaqsan yahay mar kale qur-aanka kariimku wuxuu isku xidhay oo isku lamaaniyey bayna alamni waraqad alcaysh waxaa kaloo isku lamaaniyey bayna alkhawfi waljuuc gaajada iyo faqriga iyo baahida iyo nabadgelyo darradu way isleeyihiin dheregta iyo barwaaqada iyo nabadgelyaduna way isleeyihiin sidaa waxaa tilmaamaya aayadda allah tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay fi suurati الnaxli wadaraba allahu maala qaryة kanat aaminaة muطmaئnaة yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kaanuu yasnacuun degmuu ilaahay ka sheekeeyey tusaaluu ku bixiyey waxay haysatay ammaan way xasiloonayd risqi waasicoo meel kasta uga imaanayana way haysatay u fiirso ammaanna way haysatay risq waasicana way haysatay ilaahay nicmooyinkiisii bay ku kufriday markaasaa ammaankiina waxaa looga dhigay cabsi baa loogu bedelay risqi waasac ah iyo noloshii wanaagsanaydna waxaa loogu bedelay gaaja loogu bedelay marka gaajada iyo faqriga iyo baahida iyo nolol xumada iyo ammaan xumaduna way isleeyihiin ammaanka iyo nolosha wanaagsan iyo risqa waasacana way isleeyihiin saasay isugu lamaansan yihiin leanna meeshii laga waayo ammaan laga waayo nololi ma taallo waayo taariikhda markii dib loo raacana xadaaraadka iyo bini aadamka ilbaxnimadiisa iyo noloshiisu waxay hormartaa markii ammaan la helo istiqraar amniya markuu dhaco oo mujtamacaadku iyo afraaddu iyo umamku ay xasilaan markaasay intaaj yeeshaan wax soo saar yeeshaan markaasay hormariyaan markaasay muxuu ahay nolosha qaybaheeda kale hormartaa sidaas way macnaha waa masalo laysla ogol yahay saas daraaddeed alamnu min ahami aldaruuriyaati اlinsaaniya ama adaruuraat اlinsaaniya bini aadamka waxyaalaha uusan ka maarmin asaasiyaadka ugu muhiimsanee nambarka koobaad soo gelaya waxaa ka mid a muxuu ahay ammaanka ka mid mar kale qur-aanka kariimka ah cajaa'ibtiisay ka mid tahay wuxuuba ku lamaaniyeyba ammaanka towxiidkuba ku lamaaniyeyba towxiidku soo diinta asaaskeedii ma aha towxiidkii iyo ammaankii baa mar kale laisku lamaaniyey iyadana nebiyullaahi ibraahim ducadiisii fii suurati ibraahim markuu ducaynayey waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam nebiyullahi ibraahim baa ducaynaya rabbiyow beledkan waxaad ka dhigtaa mid aamin ah aniga iyo caruurtaydana waxaad naga fogeysaa inaan sanamyada caabudno soo maa sanamyada inaan caabudno naga foge shirkiga naga foge waa oo shirkigo laga fogada soo towxiidkii maaha towxiidkii iyo wuxuu isku lamaaniyey iyo ammaankii meesha uu diinteenna kaga jiraad garan kartaan marka inaysan meel dhow ahayn
waxyaalo fara badan oo axkaamta shareecada ka mid ah markay amniga isqabtaan axkaamta shareecada ammaanka isqabteen la iswaafajin kari waayay waa looga tagay amniga dartii baa looga tagay si aan amniga khalkhal u galin طيب xadiidkii baa ka mida isaguna macnaha tilmaamaya tirmidhi soo saaray qeyrkii oo culimada qaar ay leeyihiin waa xasan nabigu sallallahu alayhi wasallam markay bishu dhalato oo bisha arko dhalashadeeda waa kii ku ducaysan jiray allahumma ahillahu alayna bil amni wal iimaan was salaamati wal islaam ilaahu bisha waxa noogu dhalisaa ammaan iyo iimaan soomaarad iimaanku waa tawxiidkii sooma ammaankii iyo iimaankii baa isla marka يسدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل علماء قار كمذا وحي ليهن يعني وحيالها بني آدم كو أساسيات كان لوش صوحها كمذا عافمات كيسا أمان كاكوري إلي الإمام الرازي عليه رحمة الله وحليه علماء قار كمذا وحل ويدي الأمن أفضل أم الصحة ما أمان كوناكسن وفضل بدن مس عافماتك markaasaa ninkii culimada la weydiiyay arinka wuxuu ku jawaabay al-amnu afdal amaanka fadli badan marka wuxuu u keensaday daliil xisi ah wuxuu yiri neef ariya haday lugtu ka jabto haduu lugta ka jabo iyadoo lugta ka jaban ayay dhutinaysaa way iska luudaysaa daaqay raadsanaysaa cuntadii bay raadsanaysaa cabitaankay raadsanaysaa haday xataa muxuu ay kici weydo way siqi lugta ay ka jabtay uma diidayso inay raadsato daaq iyo risiq raadsato laakiin wuxuu yiri neefkii ariga isagoo fayow oo lug ka jabnayn oo balaayo qabin haddii meel lagu xidho agtiisana yey lagu xidhayay ama waraabo lagu xidho daaqna la hor dhigo wuxuu yiri daaqaasi ma cunayso inta yeyda arkayso sida u didsan tahay yeydan isaga ilaalinayso bay ku geeriyoone cuntadaba fiirin mayso markay lug jabnidii uma diidin inay risiq raadsato laakiin arsaaqdii iyo hortaala cabsida gashay daraadeed ayaa u diiday inay arsaaqda cunto oo daaqa cunto hor yaal cabsida baashan ay ka baxaysaa ka hor istaagtay marka waa wax aadamaha kaliya khaas kuma ahee waa wax noolaha oo dhan ka dhaxeeya intuu baqayo waxba u dhadhami maayaan noloshii uma dhadhamayso ilaahay herkaasay gaarsiinayaan marka waxay tilmaamaysaa ahmiyadda ay leedahay markaas wuxuu keenay xadiidkii haddaan soo marnay man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafa fii jasadihi cindahu quutu yowmi fakaannama xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ayib waxaa ka mid ah arrimaha tilmaamaya diinteenna iyo amniga meesha ay dhigtay iyo ahmiyadda uu leeyahay dadka amniga ku ciyaara waa ammaanka mujtamacaadka iyo xasiloonida ku ciyaara أحكام للدجيو عقوبات كالدجيو هو أدق بشريعة كدجس وأن تريد لهين نحريص لهين وأمد كتب سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا إلى آخر الآية dadkaas dhulka fasaadinaya ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya dhulka fasaadinaya fasaadka ka shaqeynaya alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala abaalkoodu waa in la laayo ama la salbiyo la daldalo ama gacmahooda iyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo ama dhulka laga masaafuriyo ma tartiiba mise imaamka khiyaar u laho xaaladaha kala dooran kara waa mas'alo khilaaf fiqhi waaye culimadu ku kala duwan yihiin laakiin hadda gelimeyn laakiin muhiimadu wax weeyaan yaani wax loo yaqaan xiraabada xukunka xiraabada loo dajiyay dadka qutaacu turuqda ah tidka jidgooyada sameeya amaanka khalkhal galiya magaalooyin ha noqoto baadiye ha noqdo dadkii ayba mari laayihiin noloshii kala socon laadahay oo amaanka khalkhal gelinaya loogu talagalay kuwaas ayadu ka hadlaysa
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث أنس ورينيو dhacdo waxa dhacday waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam niman reeco kulliya ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo koox way islaameen marka magaalada Madiina yimaadeen way islaameen markii magaalada waxooga ay joogeen ayay ku xanuunsadeen magaaladii bay leeyahay qabsan waayeen waxaan la yiraahdo way ku daltabiyoodeen ama cudur galtiyeed ba ku dhacay يعني ماشي marka aadan garanaynin caloosha laga qabtay way ku xanuunsadeen markay xanuunsadeen buu nabigu wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam fa amarahum an ya'tu ibila sadaqa wuxuu ku yiri geel waxa jira zakaa oo magaalada korkeeda daaqaya geela u taga geela isaga caanihiisana caba kaadidiisana caba yani wala daaweynaya kaadidiisana soo caba caanahana soo caba buu nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama magaalada ku xanuunsateen sidii bay yeeleen way bixeen caanihii iyo kaadidii geela markay ka dhargeen bay caafimaadeen waa ka boodeen markay caafimaadeen ayay marka waxay isku dareen inay diintiina ka baxaan ninkii geel jirka ah geela la joogayna ay dilaan geeliina ay dhacaan Soomaali bay ahaayeen talo geel dhacaas geelina waa qaadeen Soomaali baa geel kala qaaday waa baxeen marka nabiga sallallahu alayhi wasallam warkii baa soo gaaray markiiba ciidan buu ka daba diray rag orod badan oo waxa jira sanadkan akwacan in la dhihi jiray oo fardaha ka dheereen jiro saxaabada kamid ah adigu raggii iyagoo geeli meel sii wada laga daba tagay waa la soo qabtay waa la keenay soo qabtay nabiga loo keenay sallallahu alayhi wasallam geelina waa laga soo dhiciyay nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu ciqaabay cuquubo wuxuu mariyay inta la garanayo nabigu cid uu mariyay aanay jirin qata'a aydiyahum wa arjulahum lugaha iyo gacmuhu ka jaray wa samala a'yunahum indhahana uu ka saaray ruwaaya kale oo samara مسامير كلول بو عندها كغوبي ثم لم يحسمهم حتى ماتوا روح marka nabar gaadho ama wax la gaarsiyo dhiig baxayo waa la gubaasay dhiig uu istaago waa la daayay ilaa ay geeriyoodeen meeshii ku dhinteen sababtu wax weeye dad wax layn kaliya ku gaabsaday sida looma ciqaabin dad ridda kaliya ku la yimidna sida looma ciqaabin laakiin mushkilada ay sameeyeen wax weeyaan waxay isku dareen inta soo dambi oo ay kamid tahay dil iyo diinta ka bixeen iyo amniga iyo khalkhal galiyeen markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sida ula dhaqay sidaas daraadeed ahkaamta adag waxa looga dajinayaa halista iyo khatarta ay leedahay in mujtamacaadka iyo bulshooyinka amnigooda la khalkhal galiyo diinteenu meel adag bay ka istaagtay wax lagu khamaari kara ma wax la fudaysan kara ma aha laana wax way noloshii asaaskeeda waa inta hadaynu marka fahanay waa dhacway amniga iyo amaanka iyo nolosha bini aadamka meesha uu kaga jiro shariicadu gelisay aadamaha kaleete xataa muxuu ahay aan diinta rumaysnayn way ogyihiin kulligood gaal iyo muslima amaanka sidaas daraadeed hay'adaha dawladaha adduunka horaan iyo haddaba hay'adaha dawladaha ugu kharashka badan loogu dadaal badan yahay waa hay'adaha ka shaqeeya amaanka iyo amniga ka shaqeeya طيب inta kadib mawduucan hadaan u nimaadno wayahan waxa aad u soo kordhay sidaan horeyba u sheegnay afduubka iyo shabakado dadka afduuba oo muxuu ahaayay madax furasho weydiista mardila siyaabo kala gedisan u dhaq haddaan isweydiina asbaabtu maxay tahay way badan tahay laakiin dhowr ka mid aan soo qaadanayna asbaabtu way kala duwan tahay asbaabta waxa ka mid ah asbaab amniya oo waxa dhacaya dadka qaar kood inta la dafo oo la afduubto
raad iyo raq meel ay dhigeen in la waayo qaarna meydkooda meel laga soo helo arinta iyada ah muddo ka hor bay dal ku soo korodhay falalka noocaas qaar ka midana waxaa lagu eedayaa oo lagu tuunsan yahay laamaha amniga qaar ka mid ah gaar ahaan dadka mutahamka la tuunsan yahay way ahayd sida nidaam ahaan u degan inay mariyaan maxkamad mariyaan oo dambiga ruuxa lagu soo oogo bedelkeeda waa la qaadayaa waa la dhuuminayaa waa la waayayaa ama meydkiisa meel laga soo heli ama marad iyo raqd midna la heli maayo taa way dhacdaa waa mid aad looga qayliyay oo mas'uuliyiinta iyo gaar ahaan muslimiinta inta badan ku dhacday dhalinyaradooda taa wax badan hadda lagama qaban karo talabaadi wax weeye asbaabta keenta waa asbaab dhaqaale iyo kasab يعني wax weeye xoolaa laga raadiyaa afduubka oo iyada lafteeda noocyo ku timaada noocyada waxa kamida almunakafaat tijaariya inta badan waxay ka dhacdaa ragga ganacsatada waaweyn ganacsi ama fursad ganacsi baa la isku garbinaya markaas la iskharijinaya waxa la isu isticmaalayaa shabakadahan wax dila iyo gaangiskan iyo waxana la isu isticmaalaya inta badan waxay ka dhacdaa tujaarta waaweyn oo mesela fursadaha ama kontradaha dawladdu bixiso ama fursado tijaaro oo ganacsi xasad ba dhex maraya way is arkahayaan kadibna inay iskharijiyaan baa dhici karaysa iskharijinta marka waxa la isu isticmaalayaa si qarsoodi ah way dhacdaa sidaas oo kale dafida noocaas way ku timaadaa oo ujeedo dhaqaale waxaa kamida ujeedooyinka iyo asbaabta keenta waxaa kamida alxusuul ala fidya maaliya ruuxan inta la afduubo in markaas laga qaato madax furasho inta badanna waxaa sameeya bulshada qaybaheeda hoose oo baahan baa sameeya yaani ruuxa isleeyihiin waxooga waxbaad ka helaysaan ama isagii bay afduubayaan ama ilmihiisa ama xaaskiisa ay afduubayaan meel bay gashanayaan kadibna waxay leeyihiin dadkaagii la hadal waxa soo bixiya hadii kale waa khaarijinayna waa nidaamkii ninkii la dhihi jiray magafe hawshiisii way jirtaa iyadoo waliba waxay hadda wadankan aad ugu sii xoogaysanay arrimaha noocaas oo kala markay gaajadu sii daraato waad ogtahay corona sidoo u dhacay dhaqaalihii wadanka wax badan baa burburay Soomaa waliba dabaqada hoose iyo bulshada qaybaheeda hoose ee fuqarada ah way u sii nugul yihiin hoos u dhaca dhaqaale wadanka ku dhacay sidaas oo kale markay dhacdo in badan oo dadka kamida si ay nolosha u ta'miiniyaan waxa marka shaytaan ka dhaadhicinaya wax afduubo shabakaad baa sameysmaya sida wax ku raadiya markastoo gaajadu badatana daahiradaasi aad bay u soo baxdaa طيب waxa kale iyadoo soo baxdaa sidoo kale marka doorashadu soo dhowdahay oo kale oo dhaqaale la doonayo in muxuu ahay la sameeyo waxa asbaabta kamida keenta oo muxuu ahay dawaaficda kamida muxuu ahay munaafasaadka siyaasiga oo qoliyahan siyaasadda isku hayay siyaasadda ku tartama ayaguna waxay isu dabaraan inay si hoose isu khaarijiyaan way dhacdaa iyadana oo muxuu ahay munaafiska kula tartamay ama ragga wada isaga kuwada muhiimka in si hoose loo khaarijiyo iyadana way dhacdaa asbaab siyaasi way markaas ayaa keenta macna waxa kale asbaabta kamida oo keenta wax loo yaqaano asbaab shahwaaniya yani afduubka waxa keena asbaab ku saabsan cid ujeedadiisu ay tahay inuu shahwo guto inta badan qaybta waxay ku dhacdaa dumarka daxiyada inta badan dhibanayaasha ku gala waxa kamid dumarka weeyaan macna oo waxa dhacaysa in ama gabadhii ama haweeneydii loo afduubto calaashaani in
shahwa laga guto oo la kufsado oo la faraxumeeyo iyaduna way dhacdaa oo marka laga yaabo in ama sida lagu soo daayo markii laga danguto ama ay dhici karayso si aynan sir u bixinin in marka la kharijiyo ujeedadu marka ujeedo maali ama dhaqaalana ma aha siyaasadna ma aha laakiin wax weeyaan uun shahwo ka guda waay ama shahwo ku guda waay ayaduna way dhacdaa tobadana dumarka ku dhacdaa inahaas waxa la dhihi karaa waa asbaabta keenta dhaqaalaha noqoto madax furashaha noqoto siyaasad ha noqoto amni ha noqoto asbaabahaas inta badan ayaa sabab u ah qaybta dambe haddaan u nimaadno see la isaga ilaaliyaa jawaabtu wax weeye qodobada soo socota waa qodobada soo socota kow waxaa asbaabta ugu muhiimsan ah annaga gaar ahaan muslimiinta in aynaan halmaamin adkaarta iyo taxsiinaadka sharciga ah yani waxaa jira shareecadeennu inoo jidaysay adkaar galbihii iyo subaxdii iyo habeenkii iyo markaad gurigaaga ka baxayso lagu xirsi xidhaa jirta ruuxu markuu sidaa u xirsi xidho